Bismillah, assalamu alaikum. Maanta waxaan jeclaystay inaan idin la wadaago ama aan isla akhrino buuggan la yiraahdo Shaqadaada soo bandhig amaba Show Your Work. Qoraa Mareykan ayaa qoray waxa uuna soo bandhigayaa ilaa 10 fikradood oo kugu kaalmeyn karo sidaad online-ka wax ugu soo gudbin lahayd isla markaana aad tiknoolajiyadda adduunka isku furtay uga faa'iideysan lahayd. Dad badan waxay u arkaan dadka wax soo gudbiyo ee online-ka, YouTube-ka, Facebook-ka iyo meelaha kale wax lagu soo gudbiyo ka soo muuqdo in ay yihiin dad jecel inay isxaysiiyaan amaba caan noqdaan. Fikradaas ayada ah sax ma ahan ee qoraagu waxa uu leeyahay shaqadaada ama waxa aad qabato ama waxa aad xiisaso daadan adiga soo bandhigin way adag tahay inay dad kale arkaan. Maanta adduunkii waa uu isku furmay waxa uuna noqday tuulo camal. Meel kasta oo ay joogaan dadka Soomaaliyeedna waad saameyn kartaa. Dad wax soo gudbinaysa iyo dad wax wanaagsan soo gudbinaysa labadaba. Waxaad moodaa in ay bateen dadka dhinaca madadaalada, majaajilada iyo waliba fanka waxaan la yiraahdo dadka soo gudbiyo halka dhinaca kale ay nagu yartahay bulshadeena Soomaaliyeed aqoonta, cilmiga iyo waliba waxyaabaha kale ee la halmaalo dadka soo gudbiya aad inay u yar yihiin. Marka waxaan jeclaystay inaan buuggan soo bandhigo 10 talo oo uu qoraagu sheegay ama fikradood oo uu soo gudbinayana aan idin la wadaago si aan idinku dhiirigeliyo intiina wax garadka ahayn hubo in runtii caqli iyo cilmi labadaba aad haysaan waxa aad u soo gudbin lahaydeen online-ka aad wax ugu soo gudbin lahaydeen. Buuggu aad buu u yar yahay ma badno taqriiban yani hal maalin ayaad ku dhameyn kartaa. Soo dhawaada mar kale waa walaalkiin Cabduuli Khaliif. Haddaan ku bilowno fikradda koowaad ee buugga ku jirto qoraagu waxa uu leeyahay uma baahnid inaad noqoto qof caqli badan si aad online-ka wax ugu soo gudbiso. Dad badan waxa ka dhaadhacsan in qof hal abuur leh isla markaana mar la arag ah uu wax soo gudbin karo sidoo kalena uu qofka leeyahay awood wax soo gudbineed. Taasna xaqiiqo ma ah. Runtii qoraagu waxa uu leeyahay adoo barbarad ah oo ku cusub waxa aad markaas ay shaqada ku ah ama waxa aad jeceshahay xiisayso ayaad wax soo gudbin kartaa. Wadada intaad ku jirto wax soo gudbinta ana wax ayaad baranaysaa oo aad kororsanaysaa markaste. Marka waxa uu leeyahay fikradda inuu qofka xirfadle yahay, professional yahay oo waxaanayto uu ku yahay qof aad ugu horeeyo inuu yahay qof barbarad ah. Waxa fiican ayuu leeyahay inaad tahay qof barbarad ah. Sababtuna wax kale ma ahan waxa weeyaan qofka barbaradka ah wuxuu ku dhiiradaa inuu soo gudbiyo waxa ay dadka xirfadlayaasha ah ay u arkaan inay yihiin wax aanan astaahilin in la soo gudbiyo. Qofkan waxa uu ku dhiiradaa sidoo kale inuu markasta wax cusub barto oo markasta nafsadiisa ayuu horumariyaa oo waxa ku jira dareenkan ah in uu u baahan yahay inuu hawshiisa markasta iyo waxaas uu soo gudbinayo uu horumariyo. Marka adoo barbarad ah ayaa fiican ayuuba leeyahay inaad tiknoolajiyadda ka faa'iideysato oo aad wax soo gudbiso online-ka. Haddii ay ahaan lahayd qoraal aad qortay oo aad blog u samayso oo aad ku soo gudbiso website, haddii ay ahaan lahayd muuqaal aad iska soo duubtay oo aad Facebook ku soo gudbiso iyo YouTube-ka ka wada, iyo haddii ay ahaan lahayd sawirro xambaarsan fikrado dadka faa'iido u leh inay ahaato intaba. Dad marka waxaa jiro caqli iyo cilmi u saaxiib ah, garaad leh, in badan aan arkay laakiin leh waxaan ka cabsanaynaa inaan wax soo gudbino. Dadkaas ayaga ah qoraagu waxa uu soo qaadanayaa qoraaha uu leeyahay ninkan caankii la yiraahdo Steve Jobs ee asaasay shirkaddan Apple hadda uu dhintay. Ninkan waxa uu leeyahay hadal cajiib ah oo sida tan ah: xusuusta inaan dhiman doono mar walba waa aaladda ugu muhiimsan ee igu kaalmaysay inaan go'aano waaweyn gaaro nolosha. Sababtoo ah waxyaabaha kale oo dhan sida waxa laga filayo, sharaf oo dhan, cabsida in lagu ceebeeyo ama aad fashilanto, waxaasoo dhan dhimashada ayaa waxba kama jiraan ka dhigayso, taasoo kuu soo reebayso kaliya waxa si dhab ah muhiimka kuugu ah. Xusuusta inaad dhimanayso waa waxa ugu fiican ee aad kaga gaashaaman karto inaad ka cabsato guuldarro ama aad wax lumiso. Steve Jobs ninkaan aqoonin waa ninka asaasay company-ga adduunka ugu qanisan ee la yiraahdo Apple. Marka waxa aan leeyahay dadka ayaga waxa weeyaan ha ka cabsanin inaad wax soo gudbiso. Waxa naga harayo haddaan bini aadan nahay waa wixii wanaagsan ee camal wanaagsan ee aynu ka tagno. Dunidan maantay online-ka noqotay oo qof walba gacantiisa oo mobilka ugu jirana haddii aad wax wanaagsan ku reebto jiilka jiil ayaa la daawan doonaa, sanawaad badanna waa la daawan doonaa. Haddii aad dhimato marka camal wanaagsan oo adiga ku haro ayuu noqonayaa sidoo ninkaas sheegayna waanu dhiman doonaa. Marka ma jirto wax aynu uga cabsano falcelinta nooga imaan doonto dadka daawan doona waxa aynu soo gudbinayno. Marka dadka ayaga waan ku dhiirigelin lahaa runtii haddii adiga aad ka mid tahay haddii qof kale uu yahayba in aad soo gudbiso waxa aad jeceshahay adiga cilmi iyo aqoon iyo wax walba oo ay ahaan lahayd intaba. Halkan ayaa waxa imaanaysa marka arrinta labaad ee uu qoraagu soo bandhigayo oo ah badeecaha ka fikirin hawsha aad qabanayso ayaa ka muhiimsan.
markii aan leenahay shaqadaada soo bandhig oo lama jeedno shaqadaada waxa aad qabanayso mushaarka lagu siiyo kaliya ee waxaan ka wadnaa waxa aad xiisayso adiga waxa aad akhriso waxa aad ka aragto dadka kale ee aad isdhaahdo dadkaaga ay u faa'iideyn lahaayeen Soomaaliyeed inaad soo bandhigto haddaad wax qorto blog samayso waa free lacag la'aan ayuu joogaa aniga hadirtan blog ayaan sameeyay domain name ayaan u sameeyay abdulay.com awaanan ku xiray hadda ka dambana waxaan doonayaa hadduu Ilaahay idmo in aan ku soo gudbiyo qoraalada muuqaaladan aan idin soo gudbiyo aan ka sameeyay inta badan waan qoraa si ay hadhowdi u noqon karaan book xilli dambe soo baxa insha Allah taala marka haddii aad wax qorto oo dadka wax qora aad ka mid tahay blog samayso kuna soo gudbiyo blogyada waa free domainka name-kana amaba .com-ta waxaan magacaaga oo .com u raacsan yahay kaliya waxa uu joogo waa $10 sanadkii dhan haddii aad sidoo kale wax akhriso waxaad akhrisay faa'iidada leh dadkaaga la wadaag una soo bandhig xataa haddii aad tahay hooyo guriga joogto barbaarinta ubadka wax sahlan ma ahan iyo hooyanimada soo bandhig wixii talooyin iyo fikrado ah ee aad isleedahay dadka way u faa'iideyn karaan ma aha reerkaaga iyo gurigaaga iyo qolkaaga jiifka waa iga afeeftaas haddaba sidaad u soo gudbin lahayd waxa weeyaan inaad documenti garayso hawshaada aad qabanayso inaad documenti garayso bilowgeeda dhexdeeda iyo waliba dhamaadkeeda intaba haddii aad sawirada jeceshahay sawirro badan ka qaad haddii aad video ka samayn karto video ka samee haddii aad wax qoraal ka jeceshahay notebook soo qaado oo ku qor adii sidii hadba ku fiican ama ku fudud samee fikradda saddexaad waxa weeyaan maalin kasta wax yar soo bandhig waxaynu ognahay in sidaan buugii hore ee aan Atomic Habits aan ku sharxay wax yar oo joogto ah waxa ay ka fiican yihiin wax badan oo aad hal mar soo bandhigto sida daraaddeed qoraagu waxa uu leeyahay haddii tweet ahaan lahayd twitterka aad ku soo qorto qoraal yar haddii ahaan lahayd hal sawir oo aad maalinka soo share garayso haddii ahaan lahayd muuqaal yar oo aad soo duubto waxa aad jeceshahay ee aad isleedahay dadku way u faa'iideynayaan soo bandhig hal mar maalin kasta haddii ay hawshu bilow ku tahay oo aad baranayso waxaas ayaga ah cid aad wax ka baranayso soo bandhig ayuu leeyahay haddii ay dhexda ku marayso sidaad wax u sameynayso soo bandhig haddii ay dhamaad tahayna ama ay dhamaatay soo bandhig waxaad samaysay iskana iloobo ku leeyahay inaad maskaxda aad ka fikirto 10 sano oo soo socda iyo sanado badan oo soo socda maalinka xoogga saar maalinka ayaa wax walba ka muhiimsan qofkii wanaag isku mashquuliya maalinkiisa wanaag ay noloshiisu ku soconaysaa qofkii aanan isku mashquulin nafta ayaa waxay u jihaynaysaa dhinaca xun ee nolosha marka ka digtoonow inuu maalinkaaga ku imaado firaaq aadan waxba haynin taas weeyaan fikradda guud ee buugga ka madax bannaan ee aan anigu runtii aaminsanahay dadkana inta badan ay ku taliyaan ha ka walwalin ayuu sidoo kale qoraagu leeyahay waxaas aad soo bandhigaysa inay 100% wax fiican noqdaan waxa uu leeyahay 90% waxyaabaha la sameeyo waa crap ama waa qashin 10 kaliya ayaa ka wanaagsan marka hawshaada inay perfect noqoto waxba ka walwalin haddii aad ka shakiso waxaanay inay wax faa'iido leeyihiin iyo in kale ama wax dadka qancin kara inay yihiin iyo in kale u bandhig buu ku leeyahay qof aad ku kalsoon tahay garaadkiisa aqligiisa saaxiibana aad tihiin ama dadka ka agdhow haddii taa ay ku anfici wada wali ka sii shaksana waxa uu leeyahay 24 saac markay ka soo wareegto dib u fiiri bal waxa ayaga inay yihiin wax la share gareyn karo iyo in kale marka maxaan soo gudbinaa maxaa shaqadanada noqon karo masawiradeena waa maya ma gurigeenna waa maya reerkeenna waa maya socodkaaga saad u socota miya waa maya labiskaaga miya maya cuntadaada miya maya shaqadaada soo bandhig ayuu qoraagu leeyahay waxa aad qabanayso ee aad ku xiiso geliyo ee aad jeceshahay waqtiga ku bixiso haday wax wanaagsan yihiin soo bandhig fikradda afraad waxa weeyaan faduulnimadaada soo faag faduulnimo waxaan ula jeedaa bini'aadan haddaan nahay waxaan jecelnahay inaan wax barbaarno oo wax ogaano oo wax sameeyno sidaa daraaddeed waxa muhiim ah waxa weeyaan waxa adiga ku xiiso geliyo ee aad dareento faduulnimo ah inaad ogaato waxa ayaga wax ma sheegaan wax wanaagsan baan ka hadlayaa waxaas ayaga ah isweydii qoraagu waxa uu leeyahay arrinta shanaad sheeko wanaagsan sheekada waxa la sheegaa inay tahay waxyaabaha ugu fiican ee qofka bini'aadanka wax lagu baro ama wax lagu tuso sida daradeed waxa uu leeyahay qaab sheeko ahaan ee waxaaga u soo gudbi haddii aad sawir soo gudbinayso leeyahay waa inaad soo raacayso leeyahay qoraal haddii aad video soo duubayso waa inaad cod soo raacayso haddii aad qoraal soo gudbinayso sidoo kale waa inaad sawir sharaxaya qoraalkaas aad soo gudbiso yaysan noqonin waxa aad soo gudbinayso wax sheeko ka maran sheekadu ku dhaxdar ayuu leeyahay oo qaab sheeko ah u soo gudbi waxa aad soo gudbinayso qoraagu waxa uu sii raacinayo arrinta lixaad ah bar ama dhig waxa aad taqaan haddii aad macallin tahay maadooyinka aad dhigto online-ka ku soo gudbi muuqaalo ka soo duub haddii aad arday tahay maadooyinka aad ku fiican tahay sidoo kale soo bandhig oo soo duub haddii aad mechanic tahay oo aad gawaarida samayso soo duub sida gawaarida loo sameeyo
customer badan ayaad ku heli ma ahan in ay kugu badanayso tartanka ama dad cusub intay xirfadaada inay ku soo biiraan ha ka walwalin albaaba cusub oo fursadeed ay ku furaysaa oo nolosha haddii xataa aad maqaal leedahay cuntadaada qaabka aad u karayso soo bandhig customers ayaad sidoo kale ku helaysaa ama dad cusub oo wax ka iibsado xiiseynayana waxaas ay arkeen inay ka gataan keelaal ayuu leeyahay qoraagu fikradda selfishka ah ama anaanimada ay ka muuqata ee ah in waxaaga ku qarsaanaadaan oo ay adiga kaliya ku koobnaadaan taas waxa uu leeyahay albaabo badan oo fursadada ku furmi lahaa ay ka xirmayaan waxaana xaqiiqo ah oo jirto waxaad adiga ka gaartay ilaa heer aad ku shaqaysato qof kale inuu sidaas oo kale ka gaaro xataa haddii aad soo bandhigto waqti badan ayay uga baahan tahay marka in ay fursad ka dayacdo ama lagula tartamo ka cabsanin ayuu qoraagu leeyahay qoraagu arrinta toddobaad waxa uu leeyahay ama fikradda toddobaad cayayaan ha noqonin waxa uu la jeeda waxa weeyaan in ay jiraan dad jecel kaligood waxooda in la daawado waxooda bas inay dadka daawadaan waxa dadka kaleetana inaan la daawanin jecel waxa uu leeyahay haddii aad qoraar rabto inaad noqoto waa inaad wax akhriso marka koowaad haddii aad rabto inaad taageerayaal yeelato waa inaad taageero noqoto marka hore haddii aad rabto inaad muuqaalo wanaagsan soo gudbiso waa inaad wax daawato dadka kale wax ka barato sidaa daraadeed wixii wanaagsan oo aad aragtana soo gudbi waxaad dadka wax ka baratayna soo gudbi ayuu leeyahay qoraagu ha ka xishoonin taas noloshu markaad wax ka faa'iideysato ayaad wax wanaagsan soo gudbin kartaa laakiin haddii aad noqoto qof leh ani wax walba naqaanaa aqli iyo garaad baan u saaxiib ahay anaa wax walba dadka ka badiya haday ka noqoto baasho cayayaan ayaad isku bedelaysaa buu leeyahay dadkuna ay hoos u feeriyaan oo aanan wax wanaagsan dadka ku kordhinayn waxa kale oo jiro oo bulshadeena ku badan dad wax walba siyaasad ka fiiriyo dhacdooyinka dhacaya ee siyaasadda aad ugu mashquulo adiga uma baahnid inaad siyaasad soo gudbiso sida aan horay u sheegay waxaad kale oo jiro majaalo nolosha aad u tiro badan oo wax laga soo gudbin karo waxna laga sheegi karo sidaa daraadeed ku dadaal in aad jaanibka wanaagsan ee online-ka wax soo gudbinta ah ee cilmiga iyo aqoonta iyo garaadka u saaxiibka ah aad ka mid noqoto dadka wax ku soo gudbiyo ee aadan ka mid noqonin MVP iyo CBP ga la sheego qoraagu waxa uu leeyahay wajiga wax u diyaar garow hadaad wax soo gudbinayso dad waxa jira cajabka xataa u cajabinin dad jecel ba dhinaca xun inay nolosha ka eegaan dadka ayaga ah sida aad uga gaashaman karto waxa uu leeyahay waa block waxa loo sameeyay dadka ayaga block ku qabo kana soco haddii aad la falgasho dadka ayaga heer waxay ku gaarsiinayaan ayaga camal aad noqoto qof wax walba ka fiiriya dhinaca xun dadkii aan sheegnay fikradii horeetan ee siyaasadda wax ka fiiriya ayagana waxaan arkay runtii markii aan soo gudbinay Dr. Afyar Cilmi waraysigiisi qof baa commentiga wuxuu ku soo qoray ninkan waa nin cadow ah saas uu aaminsan yahay war hada likulli xaadithin xadiith bi arabta dhahda kaste oo hadal ku haboon ayay leedahay ma ahan qofka inuu wax walba siyaasad ka fiiriyo cilmi iyo aqoon iyo meel looga hadlayo inaad waxaas la timaado ma ahan taa waxay aday garaadkaaga duraysaa wax fiican ma aha runtii qof walbaba waxa wanaagsan ka qaado wixii kaleete aad ku aragtay ee aad isdhaahdo waxaan ma fiicnana ka tag cid dhameystiran ma jirto adduunkan marka iska ilaali in aad dadka ayaga ah ku milanto ee jecel jaanibka xun inay wax ka fiiriyaan labada fikradood ugu dambeysay midna waxa uu leeyahay qoraagu wax iibi midna waxa uu leeyahay horay u soco wax uu iibi waxa uu la jeedaa waxa uu leeyahay wax kasto aan sameynayno waxaynu u baahanaa inaynu miiska cunto saarno oo aan nolosheena maarayno sidoo kale aan kirada iska bixino ayaan u baahannahay leeyahay marka haddii aad online wax ku soo gudbiso waxaad arki doontaa dad ku soo bandhigayo inay ku shaqaaleysiiyaan ama aad koorsooyin siiso ama aad wax ka iibiso dadka ayaga ka faa'iideysa ayuu leeyahay hana ka xishoonin inaad lacag ama qarash aad ka qaadato sababtoo ah sida aan hore u sheegay waxaad u baahan tahay inaad noloshaada inaad maarayso jaanib dhan oo online wax lagu soo gudbiyo ayaana jiro oo online laga ganacsadan oo la jeeda oo e-commerce waxaan idhahaa ama tijaarada elektarooniga waa majaal aad u lacag badan runtii qofkii doonaya dhinacaas ku beerana uu ku beeri karaa oo ganacsi iyo dhaqaale doonaya inuu sameeyo ugu dambeyntii qoraagu waxa uu leeyahay horay u soco sida hore ugu socon karta waxa weeyaan in aan sidii hore aan u sheegnay maalin kasta wax soo gudbiso laakiin haddii wixii ka tanbataan oo ay kugu tira bataan oo aad dareento in aad wixii ay kugu bateen waxaad samaysaa ayuu leeyahay break iska qaado breakgaas ha ahaado isbuucyo ha ahaado bilo dib markuu tamartaada iyo enerjigaaga uu u soo noqdo soo laabo oo wax soo gudbintii ku soo laabo ayuu leeyahay qoraagu muuqaalkan intaas ku egyahay waxaan rajaynayaa inuu wax idin faa'iideeyay tan iyo muuqaal kale waxaan idinku codsanayaa inaad wixii talo iyo tusaale iyo comment ah aad hoos noo dhigtaan aad baan idin salaamayaa aad baan u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh